kooxda arrimaha bulshada ee jaamacadda Beder ayaa sii wada barnaamijkoodii la baxay Hiil Walaal waxaanay markii labaad dadka ciidda u iibiyeen qaar ka mid ah carruurta danyarta waxaana halkaasi ku sugnaa sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan jaamacadda Beder ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha kooxda arrimaha bulshada ee jaamacadda Beder Axmed Baashe iyo xubno ka tirsan kooxdiisa iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan jaamacadda Beder maanta waxaanu soo gabagabeynay hore waxaan soo ciidinay hal face oo ahaa 30 qof maantana labadii face oo face 1 iyo face 2 iyo face 3 waan isku darnay oo isku noqonaya muxuu ahaayay 3 face oo isku soo koobnay face-kii labaad maanta waxaan ciidinay 70 qof oo muxuu ahaayay isku jira muxuu ahaayay dadkaan ciid meel aan ku haysan ee tabaalaysan kaasoon hore barnaamijka uga magacaabay barnaamijka Hiil Walaal oo muxuu ahaayay ugu talagalay inaan bulshadeeda wax ugu celino gaar ahaan naadiga arrimaha bulshada oo ugu talagalay muxuu ahaayay in ubadka yar aan farxad haysan in lagaga farxiyo geedigan uu soo socday oo maanta uu soo gabagaboobay laakiin maanta halkaas ku sii gabagaboobay maayo barnaamijka Hiil Walaal waa barnaamij loogu talagalay in bulshada lagu caawiyo taakulaysan kaasoo geedigiisu yahay maanta barbilow laakiin ma noqon doono bardhimaad waxaanu cid kasta oo barnaamijkan waxa si gaar ah ugu yar mahad celinaya Facebook-ga nagala qayb qaatay Western London oo Pharmacy oo isaguna qayb ka ahaa isna aad baan ugu mahad celinayaa sidoo kale waxaan si gaar ah ugu sii mahad celinayaa qof kasta oo muxuu ahaayay oo ka mid ah jaamacad oo wax ka geystay barnaamijkaasi sidii uu hirgeli lahaa gaar ahaan teamka naadiga arrimaha bulshada jaamacadda Beder kuwaasoo sidii ugu quruxda badnayd u maamulay barnaamijkaasi ilaahay mahadina waxa ah inuu dhammaanba marka la isku geeyaan ciisinay 105 qof oo maanta aan ciidi ka farxin barnaamijka Hiil Walaal saas u taxana ku noqon doona halkaas alxamdulillah ilaahay baa mahad leh kaasoo noo suuro geliyay in face 1 iyo face 2 si qurux badan oo noogu soo gabagaboobo waxaan aad ugu mahad celinayaa gudoomiyaha Axmed Baashe oo fikirkan aas quruxda badan oo ka soo burqaday waxa xasuud mudan habeenkuna la wadaagay fikirkan 3 bishii Ramadaan wuxuu fikirkaasaan wadaa idinku xalkii keena waxaan ku nidhay xalkaygu waa lacag wuxuu fikir la heliyaaba xalkiina waa la keeni waxaan ku faraxnay maanta oo la taagan yahay xalkii isagoo si guul ah noogu soo gabagaboobay mar saddexaad waxaan mahad celinayaa hagayaasha mashruuca oo lixdaha kaasoo aan la kala qaadahayn dhamaantiin waxaad haydeen barnaamijkan Hiil Walaal xubintu ka socday aad baad u mahadsantihiin dhamaantiin waxaan aad ugu mahad celinayaa jaamacadda Beder taasoo nagala qayb qaadatay barnaamijkan sidii u fuli lahaa gudoomiyaha jaamacadda Professor Mubaarak Aar soomay barnaamij aad iyo aad maarta u qiimo badan barnaamijkaas oo daawanaysa ama saaragteenba ay wadeen kooxda ama naadiga arrimaha bulshada ee jaamacadda Beder ee caalamiga ah kooxda magacooduna yahay Hiil Walaal oo waayadan dambe ay la socoteen sida ay runtii bulshadooda u caawinayeen naadigana runtii waxaad moodaa inuu ka soo dhex baxay naadiyadii kale ee jaamacadda oo dhan inuu runtii Ramadaanta dhexdeeda maarta uu sameeyay barnaamij aad u qiimo badan oo kan ugu dambeeyay ardaydina waa ardaydii ku guuleysatay tartankii adeega bulshada ee jaamacadaha Soomaaliland u dhaxeeyay kadib dhaqaalihii markaa ka soo galay la siiyay ay tartanka ku maarta waxa weeyaan ku guuleysteen iyo abaalmarintii ayaa waxay garteen ay door bideen dabcan in dadkoodii ay mar kale ay ku celiyaan halkii jeebadooda ay ku dhici lahayd ayaa waxay garteen oo si iskooda iyagoo isxilqaameen runtii inay ku caawiyaan ka farxiyaan carruurta danyarta ah ka soo jeeda qoysaska danyarta iyo kuwa kale oo agooma ah 105 carruur ah ayaa halkan lagu maartay ciidsiiyay oo laga farxiyay si ay maalinta ciidda uga mid noqdaan waxa weeyaan kumanaanka muslimiinta ee farxaya ee ciidaya runtii jaamacadda Beder haddaan nahay mas'uuliyiinteeda aad iyo aad baan ardayda ugu mahadnaqaynaa waxay sameeyeen runtii amal la yaab leh oo aad u qiimo badan naadiyada kale ee jaamacaddana waxaan leenahay ku dayda iyo guud ahaanba ardayda reer Soomaaliland amalka wanaagsan ee sameynayaan samafalka ah waa koox runtii aad u habaysan waa koox maamulkooda iyo maartay iyo isku dubaridkooda runtii aad u sareeyo aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa sheegay jaamac maanta way bishu tahay 8 Ramadaan 28 tahay maalin Axad waxa jaamacadda Beder ka qabsoomay barnaamij aad u qurux badan barnaamijkaas ay soo agaasimeen naadiga arrimaha bulshada oo runtii ah naadi aad u furfurcoon kana soo baxay hawlihii loo aasaasay
naadigu maanta waxa ay fuliyeen wejigii labaad ee barnaamijka ay ugu magac dareen hiil walaal barnaamijkaasi ku ciidsiinayeen ardayda danyarta ah ee runtii u baahan kaalmada sida ardayda agoomaha iyo ubadka kale ee allahumma salli calaa maxamed aan awoodi karin inay la qaybsadaan farxadda ciidda ubadka ay la facayihiin runtii aniga waxaa ii cajab gelisay laba arrin horta barnaamijka qaabka ay u doorteen oo ah runtii dee barnaamij maanta aad loogu baahan badan yahay waqtigiisana taagnaa meeshii ku habboonaa dhacay carruurtaa yaryar ee laga yaabo inay weligood xasuusnaan lahaayeen ciiddaa ku soo gashay iyagoon la farxin ubadkii facooga ahaa horta runtii waa barnaamij aad u fiican horta barnaamijka qaabka u xusheen aniga aad bay soo jiidatay waxaa kaloo aad ii soo jiidatay lacagta iyo fanka halka ay ka keeneen oo runtii ah de wax aynaan malayn karin meesha ay ka keeneen waa wixii ay isku dardareen iyagu naadiga iyo ardayda kale ee jaamacadda maasha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeegga internetka ay fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarla'ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121